kabacdi annagu waxaanu nahay dadkii ka yimi magaalada jaamac Dubbad ee dhibaatadu ka dhacday haddii ay ka dhacdayna waxaa nagu dhacay dhibaato aad iyo aad u xoog leh mid yacni waxaan kugu orin aad u culus ayaa nagu dhacday waxaa nagu dhacay markaa xasuuq iyo dhibaato ay noo geysatay dawladii markaa waxaanu annaga oo maanta nagu dhacay in la laayay oo xasuuq xoog leh oo dhibaato oo yacni layna oo biraysa oo xoolo laaya oo nooc walba leh ay nagu dhacday markaa annagu waanu ka soo badbaadnay markii aanu ka soo badbaadnayna waanu imika waxaanu soo galay soonahan hadda annagoo dhowra ayaanu soo galay meelahan haddii aanu soo gallayna anigu qoys baan ahaayo meel baan aalay haddii aan aalayna dee yacnihii casarkii markay ahayd salaada casar intaan la gaadhin ayaa dhibaata meeshii ka dhacday ciidamo ayaa yimi ciidamadiina markii ay yimaadeen waxay sameeyeen inay yacnihii magaaladii u feeraariyaan rasaas xoog leh ay ku ridaan marka anagu waxaanu moodaynay dawladii oo dad dawladan ku hoos nool baan ahaynoo dawladii oo noo timi ayaanu moodaynay marka waxa dhacday inay dawladii markii ay soo gashay meeshii ay rasaas saalbooyina saan marisay markaanu aragnay marka dadkii oo daatay oo qayb dhimatay ayaanu qof waliba yiri nafta aan la cararo markii aanu cararayna dadkii lagama hadhine waana la iryaday dib markaa xoog leh ayaa meesha ka dhacday dad xoog lina uu ku dhintay dhibaatada ayaanu anagu imika ka guryanay oo aanu ka soo gaadhnay halka tira ahaan waxa dhintay 24 qof dadka waan ku noqonay markii dambe ee aan anagu yaacnay anagu yaacnayno haddana la soo noqday dadka la aasayay waan ku noqonay caruuriyo waxbaan weynay markaa waan ku noqono waxaan isdii meesha soo eego waan ku soo dhiir markaa meydadkii iyo wixii markii la aasayay la qaadqaadiyay waan joognay